waxaa magaalada Muqdisho ka furmay shir muddo 3 maalmood ah socon doona oo lagaga arinsanayo sidii xal waara loogu heli lahaa arrinka qaxoontiga Soomaaliyeed in ka badan 100,000 oo qaxoonti Soomaaliya ayaa dalkooda ku soo laabtay 3 sano ee la soo dhaafay. haddaba waa sidii xaaladda qaxoontiga Soomaaliya ku laabanaya. wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa goor dhaweed warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho. khadiijo aadan maxamed waa hooyada 4 caruur ah muddo 6 sano ah ayay ku nooleed xeryaha qaxootiga Dhadhaab. waxa ay ka mid ahayd dad go'aansaday in ay Soomaaliya dib ugu laabtaan sanadkii hore. waxa ay rajaynaysay in ay dalkeeda ka heli doonto nolol dhaanta tan xeryaha qaxootiga, balse sidii ay filaysay ma aanay dhicin. wax alla wixii inta ku haysteen iskuul, caafimaad iyo raashin meesha la idinku siina iyo hool guri meesha la idinku siina hadii dhahay dalkeena dib saas ka helayn alxamdulillah dhaan saas ka soo duwaan gashin. waa soo guurnay labadii waana siiyeen balantii waa nooga baxeen waana siiyeen diyaaradana na soo saaray inta imaan markii eelboorka imaanay waana na sawiri baaba jakuulaad iyo 12 bilood laga rabay horta 4 bilood bisan qaadanay. dadka dhan dad oo wareeri oo noqday hata waa jira anaga waa yaabanahay wax si aan u noqonan waan ka saweynay si aan u joognan waan ka saweysay. dhadheeb hadii ku laad waa rab lahay laakiin wadan shalay adoo joog lagu leeyahay ka soo tagdin wajimaasheedana qaab daraan ugu tahay inaan ku noqon. dawladda Soomaaliya waxa ay u aragtaa arrin aad u adag in laga jawaabo dhammaan baahiyaha qaxootiga dib u soo laabanaya oo tiro ahaan kor u dhaafaya 100,000 oo qof kaliya 3 sano ee la soo dhaafay, sida hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay sheegayso. dad waa jirtaa la soo celiyo ama Yaman laga keeno ama Dhadhaab iyo meel laga soo kaleeyo oo waxyaalaha 6 bilood ah la siinayo oo in la soo raro oo dabadna 6 bilood la hayo way jirtaa. laakiin mawduuca ah qof ka soo laabtay inuu helo wax ballanqaad loo sameeyay haddii waa arrin aad oo lamana yaabayno inay jiraan dad doona saa ka cabanaya waa jirayaan waa joogayaan dalkay saas ka mid tahay kuwa jooga dhibtaan qaba marka baahidaas way jiraysaa laakiin muhiimadu waxa weeye in arrinta la wajaho. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR waxa ay sheegaysaa in ballanqaadkeedii ahaa caawinta qaxootiga dalkooda ku laabanaya uu sidiisii u fulay, balse dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda laga doonayo in ay taageeraan qaxootiga dib u soo laabanaya. anigu waxaan ogahay in taakuleentaasi waddanka gudihiisa wixii laga ballan qaaday oo ay og yihiin markayna soo bixin waxay noqon doonaan in la siiyo, laakiin kuma filna noloshooda kuma filna. waxaa la dareemayaa marka oo la rajaynayaa inay qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo mujtamacay ku soo laabanayaan ee dadkooda kaalmo u fidiyaan. halkan waa mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee duleedka galbeed ee Muqdisho. waxaa ku jira ilaa 20 qoys oo dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga Dhadhaab. tirada ugu badan qaxootiga Soomaaliyeed ee dib uga soo laabtay xeryaha Dhadhaab isla markaana yimid magaalada Muqdisho waxa ay isku bedeleen barakacayaal, waxayna ka cabanayaan xaalad nololeed oo aad u adag. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.